waxaan ka hadlayaa walaal been abuurad lagaga been abuurtay jaraa'id ka soo baxay Haatuf maalintii shalay ahayd oo bishu ay ahayd 22 arrinkaas oo been abuurada oo aan waxba ka jirin baan doonayaa inaan ka hadlo. Watahay muxuu ku saabsan yahay markaa been abuurtaas? Wuxuu ku saabsan yahay laba habeen ka hor ayaa nin iga soo garaacay Hargeysa magacayga la siiyay. wuxuu igu yiri waxaan ahay wargeyska Haatuf baan ahay marka wareysi ma siin kartaa buu igu yiri. waxaan ku yiri maya wax kuma siin karo waxba ma hayo. cabaar markaan joogay haddana waa igu soo celiyay wuxuu igu yiri waxa la igu yiri waxa tahay xubin ka tirsan bulshada rayidka ah marka waxaan doonayaa inaad wareysi i siiso. waxaan ku yiri wareysi ma yaalo halkan wax wareysi aan ku siin karaa ma yaalo wax cusub ma hayno. saasuu iga tagay. jaraa'idkii baa Hargeysa ka soo baxay Hargeysa laga sheegay waxa la yiri jaraa'idkaad ku qoran tahay oo headline kaaga dhigay wuxuu doonana uu ka hadlay. marka arrinka waxaan marka ugu horreysay ninka jaraa'idka qoray ee aniga igu been abuurtay de meel kale uga dacwado ma jirto waxaan la sugayaa dawladda Soomaaliyeed. marka dawladda Soomaaliyeed la helo oo aan ka ashkateeyo baan doonayaa ninka inaan maxkamad la soo fuulo haddii Ilaahay idmo. caalamka oo dhan waxaan u sheegayaa wargeysyada Hargeysa inay noqdeen suuliyada lacagta lagu galo ee laga baxo iyaduna qofkii la doono ayaa wax laga qoraa. anigu nin hawlaha galay ma ihi wuu igu been abuurtay. waxaan waliba u leeyahay qofku markuu wareysi ka qaado dee waxba laga duubaa qofku waxba laga duubaa ha soo bandhigo codkii iga duubay ee wareysiga ariga iga duubay. watahay laakiin uu soo wacay aad sheegtay kadibna wareysi ayuu ku weydiiyay marka adigu wax wareysi ma bixisay? wax Allah wax wareysi ma hayaan ku wax wareysi. watahay markaas wargeyska marka laga tago wariyaha ku soo wacay ama waxaan soo qoray hadarto magaciisa ma haysa? waxa la yiraahdaa ugu yiri ilkacsa la yiraahdaa. yaa soo siiyay markii hore telefoonka ama ba inaad bulshada ka mid tahay? wallahi Hargeysa la iga soo siiyay ugu yiri nin deegaankiina ah oo reer Hargeysa jooga ay soo siiyay. watahay markaas ma la dhihi karaa si kala arinta u dhacday oo jaraa'idka laftigiisa waxa lagu qoray? ma jaraa'idka wixii lagu qor anigu waan garaacay isagii wuxuu igu yiri waxaan aad sheegayso anaa sheegaya adiga kugu baan qorin haddana magacayga ma meesha ku jira. aan gartay oo halkaas uu barkaan ka booday markaan ku yiri war anaad igu qortay maxaad u qortay telefoonka igu dhigay. watahay markaas adigu jaraa'idka maartay laakiin website buu jaraa'idka sidee? ma website ku jira baa lagu dadka dhan baa ii sheegay. waa la ii sheegay inuu jaraa'idkaas jiro. waana itaal xumo weyn oo ay Hargeysa itaal xumo ku tahay in qof meel iska joogo madaniya laga been sheego oo wuxuuna sameyn la sheego yar itaal xumo ku jirta. waxaan isdhiibnaa iyaga aan doonayna inay soo dhiibaan annaga Soomaaliyeed dabada ku hayna. anuu isdhiibku sheegaya annaga Soomaaliyeed oo dhan dabada ku hayno iyaga doonayna inaan soo xareeyno wax suuragal ah.